مدن مدحوينه مصطفى واحد جبتا حق ganacsiga ayaa nuucul yar kaga jiray hadaan reer awdalnay halka dad wajalo taasoo magaalada ay noqotay caasimada isu furan laakiin xadkayaga aanu isleenay waaba ka ugu dheer inaanu kontrabaan wax yar ku galina mooyaane wali meel jibriye meel kadiyo meel aanu ka gallo hagaagsan noloma sameey laakiin dhawahan waa wax qof kasto Soomaali gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo Somaliland iyo Soomaaliya iyo dhulkan oo dhan cid walba oo maanta joogta ay ka garaabayso in ay aad u fududaatay noloshii dadku isdhexgalkoodii kala faa'iideysiga in kasto sida hadda halkan laga sheegay meelo badan oo wali aan system loo sameyn oo isdhexgalkaasi una sidii loo baana ahayn inay jirto tii hadda laga hadlayay lahaa aagan ugu dheer gobolka Awdal customs malaha dadkina wali kontrabaan bay ku jiraan oo bariyahan la soo xoojiyo la soo adkeeyay taasoo laga yaabo in dadka dib ugu celiso in xusuustaan xilliyada kala qoqobka iyo dhibaatada oo u baahan hal degdeg ah sidii inku baad sheegteen in laga gaaro waxaan aaminsanahay barnaamijkaas oo dawladda Itoobiya falsafad ahaan maanta ay u qaadatay inuu yahay mid wax badan ka bedeli doona nolosha shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa aad ugu rafaaday xuduud beenaadka ay gumaystayaashu kala dhex dhigeen oo ka joojiyay ama ka xakameeyay potential fara badan oo ka faa'iideysan karayeen iyadoo aragtida siyaasadeed iyo political constructs ka dhisan yahay sidooda yihiin cid walba intii meesha ay joogtay ay soo gashay ay tahay haddana isdhexgal dhaqaale iyo mid bulsho oo balaaran geeska haduu ka dhaco cidda ugu badan ee ka faa'iideysa waa shacabka Soomaaliyeed